maxamed cabdi waare iyo wafdi uu hogaaminayo ay gaaray magaalada Baydhabo ee caasimada ku meel gaarka u ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. safarka madaxweyne Waare ayaa waxa ku wehelinaya mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee Hirshabelle waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed xildhibaano wasiiro iyo dadweynaha aad u fara badan. madaxweynaha Hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa magaalada Baydhabo uga qayb galaya shir saddex geesood ah oo ay yeelanayaan madaxweynayaasha Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle. shirkaasi oo looga hadli doono arrimo kala duwan. runtii saaka waxay noo tahay farxad, waxay noo tahay sharaf inaan ku soo dhaweyno caasimadii ku meel gaarka ahayd ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo. ma ahan aniga shakhsiyan intii aan joogay markii ugu horeysay oo aad timaadaan wax badan yaad noogu timaadeen. waxay sheegaysaa marka waxa aan isku nahay iyo waxa naga dhaxeeyo. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ku soo dhaweyno Baydhabo. soo dhawaada. ujeedka aan isugu nimid waxa weeye sidii awalba taxanaha ahayd oo noo socotay oo caadada ahayd oo wada tashigii aan muddada badan soo wadnay inaan haddana mar labaad mar saddexaad mar afaraad aan tashano oon ka tashano arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya, amniga, iskaashiga iyo wada shaqayntii wanaagsaneed oo hore u jirtay si adkayno. si gooni ahna aan uga tashano arrimaha doorashooyinka iyo meeshii ay wax marayeen sidii hore looga socon lahaa loona hirgelin lahaa loona dhamaystiri lahaa dhuusamareeb 3 go'aankii fiicnaa oo lagu soo gaaray. yaan isugu nimid inaan ka tashano wada tashigaasana geli doonaa insha Allah. mudana madaxweyne soo dhawow adiga iyo wafdigaada magaaladiina ku soo dhawaada. meel aad iyo aad leen kaga jecel yahay ku soo dhawaada. gurigiini koobaad iyo labaad ku soo dhawaada. aad u mahadsan mudana madaxweyne. aad iyo aad ayaan waxaan kaaga mahad celinaynaa sida sharafta iyo karaamada leh, walaaltinimada leh, kalgacaltooyada leh oo aad noogu soo dhaweyseen maanta magaalada Baydhabo. adiga iyo dawladdaadi iyo shacabka Baydhabo. runtii shacabka Baydhabo dad aad u wanaagsan waaye, si faylan hanin dhawaayaan, mahadsan yiin. runtii karaamo iyo sharaf ayaan ugu soo dhaweyseen. aadaan idinka mahad celinaa. waxaan halkaan u nimid sida aad sheegtay waqtiga adagoo lagu jiro, waqtiga doorashooyinka lagu jiro, waqtiga duruufaha adag ay ku jiraan oo gaar ahaan labadeena gobol ay ka jiraan inaan maxuu ahay bal ka tashano, isku mowqif ka noqono. mowqifka wanaagsan waa midka lagu midaysan yahay. waxa la yiraahdaa aqliga ka maqan aqliga walaalka ayuu ku jiraa. gaar ahaan go'aamadii ka soo baxay dhuusamareeb 3 oo runtii in alla intii aragtay Soomaaliya, ajnabi, muslim iyo gaal ciday doonaan ba ahaadaan loo arkay inay yihiin go'aamo runtii meel ugu yaraan wanaag badan laga talaab qaadi karo. marka maadaama insha Allah taala sida madaxweynuhu nagu casuumay aan isku wada imaan doono inaan maxuu ahay bal aan sii dhudhuujino mowqifyadaas, ka tashano go'aanadeena, ka tashano taladeena. aadaan runtii aan u sugaynaa adiga iyo golaha wasiirada wixii talaahod nagu beerisaan. madaxweyne aad u mahadsan tahay sida wanaagsan oo sharafta leh dadka reer Baydhabo waa u mahad celin. sidoo kale Baydhabo ayaa waxa ku wajahan madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo wafdi uu hogaaminayo iyagoo saacadaha soo socda tagaya halkaasi. waxaana socdo qorshe lagu soo dhaweynayo ammaanka guud ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa si weyn loo adkeeyay. waxaana wararka qaarkood ay sheegayaan in ciidamo la dhigay wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa madaxtooyada maamulkaasi.